وريا وري ميرجل لو كحيريو وريا هذا حق ولا إنه كبتي أنا كبت هذا حين بلوغي أيه واو يا كارثة لا حقيقي بس كفر يا كور وانا يا نمر على سألني ساعات عقال داري لابا صدق أفر يا آخر واكاس يا آخر أنا لقوا جاي يا وريا والله مو كان فيه كتشوالي سبعة والله إيه بلادي واربعة كتشوا والله ما دقائق لا كاتر أدو آخر باش بحال حديث الله يسكر يا باش أرما آخرين هو آخرين باش ويا عرفت والله ما أنا آخر كريم آخرين وريا أنت عطان تيس كده هو هي كان نرمي عن سنة أيه كتشوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي يا الوين السلام يا مير البودن الإضافة هنا هنيسان لبدي قرب waxaa fadhiyo abwaantima weyne iyo wariye Nucmaan Qorga waa hal abuur iyo wariye maanta waxaynu ku haynaa chance arab jalaqsi ayaa lafaha kaga jaraynaa soo dhawaada marka hore abwaantima soo dhawaad waa dhuunahay aad waa maas naga soo dhawaad aad baan u dhawnaa ma sha Allah waa tahay halkan waxa yaalo laba warqadood arab jalaqsi baa ku qoran adigu warqadii aad nasiib u hesho ninkaan aad weydiinaysaa wixii soo baxo waa ku ninkaan ayaad ku xujaysanaysaa waxa la rabaa 4 jeer ama 3 jeer waxay noqotaa ama 5 jeer tii aad doontaad ku celi leedahay waa ku isku xig أيه duu gafo oo waxa weeye siday tahay ugu soo bixi waayo عادية madax la garaacaya أيه Nucmaan ninkan adiguna uma naxariisanaysid وايا ya وايا ninkan meesha waxa la rabaa inaad ka furto عشان نحرس متى naxariis ma taalo meesha وايا xariyada la soo اوكي نور قالوا يسرعيا baashan ayaa madax la saga garaacaya iyadoon weli la soo naxariisanayn waa tahay waxaan rabaa labada warqadood oo aragtiyaasi uu ku qoran yahay waa madmadow warqaduhu waxaad garan jirteen ma professional way in aad kala qaadataan oo qof waliba waxa weeye mid uu la boodo kadibna uu su'aasha ka soo baxda ninka kala weydiin waa tahay qosol iyo xaraabo way barnaamijka تيكو واد بنقاتي حجالها إنهم قولوا استدلالين waa tahay yaa bilaabaya marka warqadaha intaada furin joojiye yaa bilaabayo in uu su'aasha weydiiyo ninka kale أبوان كابرابي أروح كابراب كوس أروح أبوان بات هو كود دوبن تهم أروح سكان حنس الله هنا هذا أنا أقول بلادنا وعنا الله يدمر لنا أنا أقول بلادنا وعنا الله هيا رويات كاتب هذا سيدا waxaan islaahay warqadan waxa ku qoran korti anu aad bi horta aniga shakhsiyan bay ila fududahay aan jeclaan lahaa shaashan inaan ugu soo beegato tan oo kale oo runtii waa khiyaano weyn meesha ku jirta abaan ku soo waxay igu soo riixay maanta dhan shaasha aad kale aniga u soo aadahay xagga mariyay si aniga la weydiiyo waa tahay si fududeyn waxay noqotay inaan aniga aan wax weydiiyo waa tahay saaxiibkii waxaan jeclaan lahaa kale wax saas leeyahay waa la ka qaadasho weeye saaxiibkayni macna baashan su'aashan waxay ku leedahay shan jeer aad ku celinaysaa horta waad garanaysaa shan jeer waa u kala dhigaya su'aashan waxay ku saabsan tahay waa carab jalaqs horta rati ma taqaana عرب جراسي حرف محات هارتي هارتي rati baan ku rati geela هارتي جيرو ويا عادي wuxuu waxay ku leedahay rati dabran dudun dadban baa ku celinaysaa shan jeer dhaxso isku xigta oo aan neefsi lahayn rati dabran dudun dadban waxa weeye ninkan su'aasha ku weydiiyay waxay tahay waxaad 5 jeer oo isku xigta u leedahay ku celinaysaa arab jalaqsi ah adigoo oranaya rati dabran rati waa la dabran soo هارتي دبران dudun waa garanaysaa soo دمنا وقرنا rati waa garanaysaa dudun waa garanaysaa labada soo garanaysaa marka waxaad leedahay rati dabran dun dadban وريا وري ميرجل لو كحيريو هذا أركي له ورايا وري ما أركي أنا كبير جالس أنا كبر كلنا قارن دي Soomaaliya ku jirtaa tani dee Soomaaliga ku jirta laakiin dee ayaa hareerayo been aad inaad geelka haysan maxaa weeye marka harti darban harti dadban waxa weeye harti darban dadban harti darban adeer soo noogu waa harti darban iyo haye aku darban ma garatay harti darban haye harti darban tusama yaa dalbay dartay dee mooyee yaa darban harti darban nagu adeer ku jirtaa beerta ku jirtaa ay beerta taageertaa ما يمكن ما تحتاجني والله وكر ما قبح يسوع ايوه وحاتري هرتي دبر بدي هرتي دبران ما كوي هرتي دبران ايه هرتي وحوي كان غير لو دبر ما روحين يا مركب حد نيجي على هرتي دبران ايه ددي هرتي دبران دينا هذه واسانيه مسكح شو نو على صبر معاد هرتي دبران هرتي دبران اوكي ايه هرتي دبران ايه ليش ما بالعاده ورينا هرتي دبران واكا وانا ku ورد حرد قشنا meesha horta waa ku jida oo su'aashii xagga ay jida ايه laakiin daadaro martida farandudun ma garaway daadaro
maxaadeero wada baashi wax weeyaan sidaad ugu tiri ku shaqo ana shaqo wanaga hadii wax weeyaan soo dhigay تمام سيد هل حبات شيء لو حبوا يحصل ما سوي تقدر فانت الدنيا تبغى talabaad ku ciido wax weeyaan kana sayna baashi qofkii wax weey miimir ma aha waxa uu mushwa qofka waa loo yakadiya tamana taaba ya bal siida ina tuscad هتدبرن hay تدون دبن tartid dadban dudu dabran waa ma sidee deema isla ma xataagan iga dhaay ma xataagan la gaar anaga baashi aqal daadi laba saddex afar shan dadaydi baa wada kacay koor anna markayga uu socdaabay isxij والله horta wax aan dhigashaa ma dhigan laakiin insha Allah waa suuya xagga ninkan Nucmaan ahaa waxba laga qiidshay waxba qabsaday su'aasha markuu gara waayay dee furta lagu helay caadi baa waxa weyn xariis lama gelin isaga markiisa weey markuu aarsan lahaa weey Nucmaan haatan adag ku maraysa dhageyso ay bas xijinaysa laakiin markaaga xariis xijinaya ay sinad يا ضرب نوري ساعدين وروح على ناس ku qabto wax Soomaalida hada akhri way soo akhrinaya ya akhri waa kaas ya akhri ana la gogaay ya abwaantima waxa ninka warqada u helay waxa weeye oo laga rabo inaad adigu dhahdo kabtaan tiilay intuu kabtaan ka qaaday kabtaa geeyay kabtayda kabtaa keen saxijide waad kaaraysaa markaaga cadaaladna waxa laba yahay tan waa lix arlix ma ahay waa kaas والله waa lix fiiradba daqiiq isku furaya ka waxana yaa noqon saaniya ساعات عدان كودعين باش النوع ما تغير هذه صدر كان نص مع مقتادي لحنا نقول انا سي لما نقول حتى واحد والله مو كان في كجوابي صباح ايه بلادي والله كجواب والله ما دقائق لا كاتره تاتاريا انا انت ما على اسكتي ساكو صاحبي عروس يوتري ادو ايه صباح ابوي ترى فيديو وقت يا هاي نصيبكاغي انا نصيبكاغي انا كلوغنا nasiibkaagi baa ku keenay xijide aragtida baash adu laba ka soo reeb warqadahan laba hayeen waa la tuuray asxaabi halkaas lagu helo garaysa waxa weey ninba nasiibkiisa ku soo aada marka adu laba ma talaba ka soo reeb waa badan tahay si laba loo reebay saawi wax ka laabasho la yiraahdo waariyaa baashin waxa weeyaan ka jawaabi si ka jawaabti karo wallahi ayuu laga jawaab ka tirayo ayna anu la arsalay xagaagi ma yaan xaraanti loo baxay أدو آخر باش بحال حديث الله يسكر لي باش أرما آخرين هو آخرين باش هو يعرفت والله ما نآخر كرين آخرين بحال آخرين هذا كلام أنا رتين سحت دي أكتوا مركاجي أنا يبغى تفكر يا أنا يبغى مرة تبغى آخرين شاتي لي لا شجر كوع عليه شجر بتكون عليه يسوي هذا الجروه يقول لي لا كذا يا ترى الضوء هذا وصار ويتن هو درس دموي يا درس أنا فتح الملو وقعد سوق بني والله هذا تو ثلاث مية أرما يسوي أكاتين عشان شغله ما تلا ما وين مرس وإما وكتشوا وسيت أقوله وإما دي أتكشرت بقرصة وكان حي مجرى إما كعرقوا أما هو كهتشر لا يقدر تراعيسا أما والله هو ساش هذا الجروي دبل بال خات خاطر ورا يعني وأنت باش هالسؤال مو هاي أقول أجمع عليه وريها أنت عطاني تيس كده هو هي كان نرمي على سنة أي كتشوا بليه كابتن تيلي كابتن تيلي أنتوا كابتن كقاضي كابتن جي كابتن إذا هاين كابتن كان كابتن إذا هاين بكابتن كان مياه كابتن إذا هاين كابتن كان مياه كابتن مال تالي برضو كابتن دميشة عايز أبو شرحية أصلا عايز أبو شرحية كتشوا بليه لغة إنجليزية ولا ما أعرف كتشوا بليه كابتن كقاضي كابتن إذا هاين ويك أدو إيه كابتن هذا هاي هذا باش هذه وريها أنا حقول لك كابتن هذا هاي بلوغي أي واو يا كارثة لا قرع انت قام اقرب مغرفتي الرد بقول على قرع انت اسم نوري يا المانيا والله سكر انا في سكر عنك يا سوي ستريس حاضر ما في ستريس حمر نوعي لهي بس كابتن تيلي كابتن تيلي انتو كابتن كقاضي كابتن جيجي كابتن إذا هاي كابتن كان شنشار كابتن تالي انتو كابتن كقاضي ايو كابتن جي كابتن إذا هاي ايو كابتن كان ايو نبكو بترت باش شكو كاس عسكر باشا نو تمانا يا عيد هنا كنا لا ساعه كده والله لا تشبر ليس عمرنا باشا لا يجري أبيض كرماي كده ايو كنت انا ما كان هنا والله بالله مركب حي كابتن تالي انتو كابتن كقاضي ايو كابتن جي كابتن إذا هاي ايو كابتن كان انا سر يعني ديار واريال ولا يتشم وارميال كيسان
يا كيرت وما يسعتها way kula socdaan ويان إن كان يروي ساتين سمان ترى دقيق بس كفرتي مركوا كترنا نرص ولا العزل يوري من كربو ما بحي ساتين ورنا ما شرع عشان كل ربع فتح حب الشم لا لله ولا ورياد والله يمنع هذا طبعا نقول waxay ka soo والله يكعب waa tahay asxaabta qaaliga ah aad baa u mahadsantihiin maanta halka waxa ka dhacday xaraabaan inna caadi ahay sidaad u qoslay indhaha waxa weeye iga yimid ninka la yiraahdo abwaantima iyo wariye qorgaab nucmaan qorgaab caawo way isheleen ma garanaysaa si adkayd baa ka dhacday qorgaabo maxaad kale barnaamijka sida waragta war barnaamijku wanaagsan yahay inta soo kordhinaya waxay tahay mar hataa abwaanatihiin oo dee dhalinyaradii iyo bulshadii u dhaxaysaan waxa weeye abwaanku wuxuu ka mid yahay waxa weeyaan waa muraayada guud ee bulshada soo imaad garan marka sidaa darteed maadaama muraayada tihiin waxa loo baahan yahay barnaamijyo kuwa ka sii xiiso badan oo waxa weeye aduna taariikhda ku gasho ayaa loo baahan yahay bulshadana imikayna daawanaysa waxaa jirta deegaano ee ay joogaan geeri iyo arigii wixii Soomaalidu dhaqanka u lahaayeen soo imaad garan kadib barnaamijkaas marka aad wax weeye aad soo geliso aad soo duubto dad baa daawanaya kastada aan weligood wadanku yaarkin baa jiro qurbaha ku nool marka waxay u baahan yihiin inay bal arkaan dhaqanka Soomaalida iyo inta uu leeyahay iyo wax weeye Soomaalidu sida dhaqanka u lahaayeen iyo geeri iyo taariikhdii soo imaad garan hadana waxa weeyaan dhaqankan afka Soomaaligu wuxuu ka turjumayaa waa in bulshada loo soo tabiyaa waxyaabaha markaas aqliga saliimka ah waxay u baahan yihiin iyadoo nuxur leh in haddana bulshadii loo soo gudbiyo wax bulshada ay ka heliso waxa jirta hees uu qaado Cumar Dhuuli Soomaaliga Allah yarxam raxmi ilaahay naxariis jannada ka waraabiye heestaa Cumar Dhuuli qaado waxa weeyaan waa hees ka hadlaysa jacaylka iyo xubada labada qof isku qabaan Soomaaliga wuxuu leeyahay harka maalintii hadaan ku arag naftaan hiifaya inaan habeen iyo inaan higoy kula haw yaraysto waan hawl badno hadda balaag war hawl badno harka maalintii hadaan ku arag naftaan hiifaya alkar way imika 2023 kan yaray imika wuxuu sameynaya hees buu sameynaya heestii YouTube-ka inoo soo gelinaya heestii uu YouTube-ka inoo soo geliyay miisig ahaan baad u dhageysanaysaa mise nuxurhaan marka Soomaalida maadaama uma Soomaaliya nahay afka Soomaaliyuna uu leeyahay waxyaabo fara badan isla markaasna dhaqanka Soomaalida iyo mid soo jireena waxa loo baahan yahay in dhaqankii Soomaalida dib loo soo nooleeyo waayo dhaqankii Soomaalida hadda uu baabacay marka taladayda iyo waxa weeye waanadan u soo jeedinaya waxay tahay dhaqanku wuxuu ka mid yahay xukunka diinta waayo dhaqanka iyo diintu waxa weeye labada qof hadii dhaqankiisa diintiisa ay midaysan yihiin oo wanaagsan yihiin dib wax fara badan dalkiisa ku soo kordhinaya wabila tawfiiq nacmo ma xasan tahay abwaantimo soo dhaw barnaamijka galabta xaraabada ahaa iyo in kastoo adigu ku dhaada aad weerarka ku horeysay weerar celiska lagu sameeyay marka waxa barnaamijka galabta kulleeyay waa miiranay cagahan la galay aniga saaxiibkay inamaanba midna ma xiriirin jawaabta saxda ma xiriirin stoo aniga ay igu ahayd baashu mataqaana bog la soo qoray hal darsi ah saaxiibkeena ku soo aaday barnaamij yar oo laba ah marka si kasta ay ahaato waa galay shambaa shuriyaado bacdina baasha nuskaana si fiican madaxa nooga dhacday barnaamij fiican weeye oo challenge ah waxaan ka turjumayaa in macnaheedu qofku maskaxdiisa wuxuu qabatay iyo sidoo kale wuxuu kale leeyahay barashada afka Soomaaliga eraydan laba laamay ama lagu soo celinayo erayada afka Soomaaliga asalkiisa ah mustaqbalka waa way kamid yihiin oo qofka afka laga dareemo qofka inuu Soomaaliga yaqaan iyo inuu san aqoonin iyo wax ka dhiman heer ku jiro erayada ka turjumay kamid yihiin saas oo ahaa waxaan kula talinayaa waan insha Allah sida walaalkii sheegay barnaamijyada nooca inaad la asxaabta meel wadaagtid saaxiib ugu baran waad mahadsantii saaxiibayaal saaxiibada garbahayga fadhiya barnaamijka galabta ujeedkiisa koowaad wuxuu ahaa barashada afka Soomaaliga ee dadka in waxa weeye afkoodii ay waxa weeye waxyaalaha carab jalaqsiga ahaa iyo waxa weeye qaybay suugaanta iyo waxyaalaha mustaqbalka afka u ahaa inay dad tustaan tan kalena asxaabtana inta kalena waxa weeye ku xaraabaysta xaraabana laga dhigo waxna ay ka faa'iidaan haduu ay baqadana barnaamijkan hadii uu idin cajibiyo ama xagga comment-ka aan ku badan yahay dadka ay codsanayaan waynu soo badin doonaa haduu ay baqadana maalmaha soo socda isagoo wali sida ka sii qurux badan aad baa uma saaxiibayaal gooliyo gobonimo ayaan leeyahay